بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك داود يا مeel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada warka telefishinka SBC oo idinkaga imaanaya stuudiga labaad oo TV ku leeyahay magaalada Tan Muqdisho. Warka waxa idin la socodsiin doona anigoo saacadaadka qodobada aad ku daawan doontaan haddii Rabbi waxa kamid ah dagaal sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Beledweyne. maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir oo xukuno kala duwan ku riday mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya oo ansixiyay golaha warbaahinta qaranka. shirkadaha Daawus iyo Omar oo ka heshiiyay muran ganacsi oo ka dhaxeeyay labada shirkadood. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad warkeena ku daawan doontaan haddii Rabbi idmo hase ahaatee haatanna warkii oo fidsan. dagaal sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida warbixintan ugu dhameystiraya wariyeena Cabdinuur Cismaan Aadan Carays. dagaal socday ku dhawaad 10 saacadood ayaa ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. dagaalkan oo aad u cuslaa oo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo aad u culus ayaa waxa uu soo bilowday abaare xalay 10kii fiidnimo. dagaalkan ayaa soo gaaray 5 barqa ee maanta. dagaalka oo aad u cuslaa ayaa wuxuu u dhaxeeyay ciidamo kala taabacsan maamulka Hiirshabeelle ee ciidamo daacad u ah hoggaanka la magac baxay Hiiraan State. dagaalkan oo ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac iyo weliba kacdoon shacab ayaa xoogaystay saakay aroortii hore. dagaalkan ayaana lagu kala baxay haatan oo saacadday ku beegan tahay 5:30 daqiiqo ee maalinimo. dagaalka kadib oo guusha ay gaareen ciidamada la magac baxay Hiiraan State oo u badan macawisley ayaan la wareegay xarumihii maamulka Hiirshabeelle oo ku shaqeynaya ugu horeyso xarunta taliska ciidanka booliiska gobolka Hiiraan. xarumo maamulka si ku meel gaar ah ay ugu shaqeyn jireen waxaana haatan magaalada gacan ku haynteeda iyo guud ahaan amniga guud ee magaalada la wareegay ciidamada daacad u ah maamulka Hiiraan. hogaamiyaha maamulka Hiiraan State Cabdiqaadir Colow oo warbaahinta la hadlay ayaa dagaalkaasi weerarka ku eedeeyay maamulka Hiirshabeelle. habeenimo sida dadku u yaqaanaan ama 4 saac habeenimo ayaa waxa weerar nagu soo qaaday ciidamo taabacsan Hiirshabeelle oo ka soo duulay magaalada Jowhar. anasiirtaas oo lagu yiri wax halkaas joogo dad shacab ah waana inaad soo qabataan, laakiin ma ayna filaynin mujaahidiin u taagan shacabka, ilaalinaya danahooda, difaacaya xorriyadooda in halkan ay ku sugan yihiin. waxaa dagaalkaasi u socday xalay laga bilaabo 4 saac habeenimo ama 10 habeenimo ilaa ay hadda oo xabadaha la maqlayo. waxaa weerarkaas geystay dad ka soo duulay magaalada Jowhar oo rabaan ummadan inay caburiyaan, inay gumaysi geliyaan, inay danaha ay leeyihiin ayna u ogolaanin ay rabaan inay xakumaan. waxay awalka hore ahayd inay dhaqaalahooda ay gurubsanayaan, haddana waxay ku soo darsadeen inay dhiigooda ay cabayaan. waxaan la yaabnay xalay marxalana lagu soo weeraray suugaas oo uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka Hiirshabeelle. waxaan u maleynaynay suugaas in loo gatay ama loo gaday la dagaalanka shabaab. xalay waxaa noo caddaatay in la rabo in lagu caburiyo shacabka markii ay aayahooda ka tashadeen
markay xorriyaddooda soo ceshteen markay dhaheen aayaheen anagaa ka tashanayno waxaa marka halkan aan fariin ugu dirayaa dowladda federaalka waan leenahay waa dowladdeenna aan soo dhoweynayno halkan waxaa ka taliya maanta laga bilaabo hiiraan state hirshabeelle dambe halkan ma ka tali doonto waxaan u sheegaynaa international community-ga hay-adaha NGO-ga inay la soo xiriiraan hiiraan state oo fadhigeedu uu yahay xarunta looga taliyo maamulka hiiraan state ama gobolka hiiraan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u soo jeedinaynaa shacabka way tashadeen ayahooda ayay ka tashadeen horena waa u sheegnay haddana waa ku celinaynaa wax gadaal loo noqonayaan ma jiraan dhanka kale banaanbaxayaal oo u badan askarta macawisleyda ayaa dhankooda warbaahinta ayagoo careysan la hadlay waxayna ka hadleen falkii aad ku cuslaa ee saaki ilaa xalay ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta qaasatan reer Hiiraan ayagoo maanta sooman wacdarada aan arkayna dhigay maanta waxa guuleystay ummadda reer Hiiraan meel kasta ay joogaan gaar ahaan reer Hiiraan state waxay dhigaan waxyaalo wili aan la arag ma sha Allah ayagoo sooman oo isha ma taqaanahay xalay xabadda bilaabeen iyo Allah hadda ku jiraan marka waxa leenahay reer Hiiraan meel kasta joogtiin noolaad ayaa dilaynaay insha Allah maanta Hirshabeelle waa laga guuleystay waana iska baxday waxa leenahay maanta iyadoo nabad qabtay baxday waxa leenahay ayayna mar daba ku soo laabanay haday soo laabato way ogtahay waxa meesha ka qabsan doono reer Hiiraan cadow ayaga ka weyn wax ugu ali waay in ayadu marka ay caburiso ay hoos u dhigto isku maday doonto taas hoos iska bixiso oo u sheegayna Bismillahir Rahmaanir Rahiim nimankii qawaaris kalkaalka ahay oo Ali Guudla oo lacag soo siiyay ayaa xalina soo weeraray xil abaara ay ahaday afar saac habeenimo xilligaasina soo weerareen waa iska celinay alxamdulillah rabbil caalamiin anigu ay walba niman dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda u dhimanaha ahaynay maahana ay walba nin aniga nin soo diray iyo niman soo diray waxba nooma sheegi karin alxamdulillah rabbil caalamiin hadda waa iska waaqa qabanaa ayaga dhamaay hadda saacadaha u dambeeyay nuur dheere iyo nikreera isaaq iyo ninkii la leeyahay jiray Cabdulla Sufrow wallahi billaah tala gacantayda baan ku saar sababtay tahay wax ay ka shaqeynaa kama shaqeyn karaan Bismillahir Rahmaanir Rahiim Ramadaan Kariim dhamaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan annaga ku hadlayno afka reer Hiiraan state waxa leenahay waxa ku dhacay Hirshabeelle waxa ku dhacay way ogtahay haddii aysan ka noqonin waxyaabaha ay hadda ay dhoobayaan waxa nagu balana ilaa iyo jooharti la sheegay inaad dabad xabad ka gelin way ogyihiin waxa ku dhacay suuqooda bartaas soo banjarayil suuqa shabaab lagu la dagaalami waayay qabiilka lagu la dagaalami waayay Beledweyne loo soo qaat xawaalla loo soo qaat waxa nagu balana ragayna iska dhaaf inaa gabdhaheena ay furtaan oo qoryaha u dhiibno waa ogtahay dabageedow waa ogtahay wix maal hore kugu dhacay waa ogtahay nuur dheer waxa kugu dhacay niyow nakala qari indhahada naga qari oo ahayn ma ahano ani aad kaas noo malana kaas geedka gaatida maraka goos isku soo wada duub Hirshabeelle iyo ayaa dhowr mar ku dagaalamay gacan ku hanteeda magaalada Beledweyne inkastoo marar badan xal hoosaad la sameeyay balse shacabka wali ay tabashada ay qabeen lama oga xaalka magaalada sida uu ku dambeyn doono maadaama xarumihii ugu badnaa maamulka gobolka Hiiraan amniga guud ee Beledweyne ay la wareegeen ciidamada daacad u ah maamulka la magac baxay Hiiraan state oo ka aramiya gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Hirshabeelle maxaa ay sameyn doontaa maadaama ciidamo taabacsan lagu adkaaday dagaal ka dhacay Beledweyne Cabdinuur Cismaan Aadan Carays raadiyaha iyo telefishinka caalamiga SBC Beledweyne hay-adda Tadaamun ayaa 2,000 oo qoys oo ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari u qaybisay raashin sida warbixinta noogu eegay wariyaheena Cabdiqani Boos hay-adda wadaniga ee Tadaamun ayaa raashin afurina u qaybisay 2,000 oo qoys oo kamid ah dadka danta yar ee ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari deeqdan raashinka ayaa waxa ku deeqday DB Wall waxaana munaasabada raashin qaybinta ka qayb galay madax ka socotay hay'adda Tadaamun iyo dawladda hoose ee degmada Boosaaso Asad Cismaan Cabdullaahi oo ka tirsan hay'adda Tadaamun ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay deeqdan raashinka ah aniga ku hadlay magaca hay'adda Tadaamun
qaybta bari waxaan maanta u joognaa inaanu qaybino raashin dhan 2,000 oo qoys oo aanu wakiil uga nahay hay'adda DP World oo ay bixisay DP World baa bixisay raashinka annaga ayaana wakiil uga hayn tadaamunaan inaanu fulino annaga oo la shaqeynayna dawladda hoose maayarka ayaana ku wareejinay kadibna sidaas ayaanu qaybtii u bixinay maantana waxaan u bixinaynaa 2,000 oo qoys raashinkoodu dadka ka qayb galayna waxay ahaayeen waxa lagu soo kala xulay sida ay u kala baahi badan yihiin aad iyo aad waxaan uga mahadcelinayaa hay'adda DP World oo ku soo beegtay raashinkan xilliga bisha Ramadaanka ah raashinkan oo loogu talagalay afurinta dadka masaakiinta ah dadka danyarta ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxyaabaha meelaha xarumaha aanu geynay jeelasha kamid ah xabsiyada kamid ah dhimirka kamid ah naafada kamid ah waxyaabahaas oo dhan baa waxaan ugu talagalay in la gaarsiiyo sidaa daraadeed sidaas ayaanu raashinka ku bixinay maantana waa u mahadcelinaynaa dhammaan taliyaha qaybta ciidankiisa oo dhanka amniga sugaya iyo dawladda waaxda arrimaha bulshada oo dhinacayga taagan iyo maayarka oo isagana hawsha nala waday iyo dhammaan shaqaalaha hay'adda tadaamun oo ka qayb qaatay ee maanta jooga dhammaan iyo idaacaddaba waan u mahadcelinayaa agaasimaha arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee degmada Boosaaso ayaa sheegay in deeqdan ay ka faa'iideysteen dadkii loogu talagalay waxay ahayd deeqdan deeq afurin ah oo loogu talagalay in ka faa'iideystaan dadka masaakiinta ah ee bisha Ramadaanada loogu talagalay waxaan sidoo kale xusid mudan inay ka kooban yihiin dadka ka faa'iideysanaya qaybaha kala duwan ee bulshada dadka barakacayaasha ah dadka masaakiinta ah dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dhammaan cid kasta oo ay deeqdan ku bixi karto intaas ka bacdi waan uga mahadcelinayaa hay'adda tadaamun ee madaxdeeda deeqdan soo gaarsiiyay anagana ka dawlad hoose ahaan aan wakiil uga ahay inaan bulshada gaarsiino iyo maamuldeeda nidaamkan dhammaantiin waan salaamayaa Cabdiqani Boosas BC Boosaaso golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay golaha warbaahinta qaranka golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya oo yeeshay kulankoodii toddobaadle ahaa ayaa lagu ansixiyay magacaabista golaha warbaahinta qaranka Soomaaliyeed oo ka kooban 9 xubnood waxaana golaha u soo jeediyay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska golaha wasiirada ayaa sidoo kale ansixiyay hindisa sharciyeedka xogta rasmiga ah iyo heshiis u dhaxeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Sultanka Imaaraadka Carabta oo ku saabsan ilaalinta laba jeer canshuuridda iyo ka hortagga la baxsashada canshuuraha golaha wasiirada ayaa sidoo kale joojiyay shirarka quseeya hay'adaha dawladda ee lagu qabto meel ka baxsan dalka shirka golaha wasiirada oo uu gudoominayay wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu soo bandhigay warbixino la xiriira amniga guud ee dalka iyadoo golaha wasiirada ay xuseen mudnaanta ay leedahay inay si dhow u wada shaqeeyaan hay'adaha amniga iyo shacabka Soomaaliyeed si looga hortago falalka lidiga ku amaanka xilliga lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa eedeymo ka difaacay duqa magaalada Hargeysa sida warbixinta noogu eegay wariyeena Warsame Siciid Laadheere ku-xigeenka amniga xisbiga mucaaradka ee wadani Saacad Balaaki ayaa ku baaqay in la mariyo ciqaabta ka dhalanaysa ninkii ka tirsanaa shaqaalaha dawladda hoose ee dhawaan haweeneyda ku dhaqan magaalada Hargeysa gaadhiga jeersiiyay wuxuuna maayarka caasimadda Hargeysa ka difaacay iyadoo loo soo jeediyay isagoo maayarka ugu baaqay in awoodiisa uu ku barbar istaago qoyska haweeneyda gabadhan laga jeeray isagoo hadalkiisii wata wuxuu baaq u daray shaqaalaha dawladda hoose shalay galab baan ogaaday waxa la yidhi sidii xumshada noqday qof baan iskaga jiro anigoo suuqa dhex maraya ilaacada BBC daaranta gaadhiga ayuunbuu warkaas Tiiq Maxamed Barmado warramay warkaasi soo galay kadib baan warkii dib u raadiyay laakiin sida cisha hore Ramadaanta lama socon arintaas daraad dhacyatii ka horeysay dhacya markaas aan xogteedii raadiyay runtii waxay noqotay arrin aad ii damaqday oo dadka sida ay dareenka dadku uga falcelinayeen ay si ka daran bay ii damaqday waa fal waxashnimo ah waa wax aan aqliga geli karin waa wax aan la oran karin bina aadan baa ku kacay xayawaan baa ku kacay mooyaane waxa weeyaan qof bina aadama ayaa inta la jiray accidentka hadii uu dhaco qofka accidentka gaara kama carro qofka laakiin inta taayirka madaxa xagga dambe laga mariyay labada taayir madaxa ka maran labada taayir dambe ayaa laga dhaqaajiyo dib loogu soo noqonin waa ful waxshnimo ah cidii ku kacday arintaas iyo cidii gacanta geysatay waxaan oran lahaa xitaa ayaan shil gaadhi lagu xisaabtay in qisaas la mariyo arrinka ka maagalay midda labaad waxa weeyaan qof bina aadama
riyaan qaatay oo qof bini'aadama intaan sheelayaan ka tegaya riya xaguu geynayay anigu garan maayo kolley baadhista halkaa la maraa dulmigana dadka ka aamusan ma ihi kamana aamusi doono baadhista inta la baadho soo saari doonto taasi ka maabay ahayd wallaahi inaanan garanaynin halkii waqtigiisii aad barre male halka maynu gaadhin arrin aada foolxun weeyaan dhaliishana dee gacan ku dhiig laale oo dee ninka gacan ku dhiiglaa baa lehe bini'aadamka iyo intii la socotay inta caqligooda xitaa garanaysa operation ka waday ayaa arrintan leh in la baahiyo anigu sax uma arko wallaahi horta maayirka eedda loo soo jeedinaya anigu taas sax uma arko maayir baabuurka ma wadin isteeninkana ma hayn gaariga isagu maamulkiisa inta alle waxaan leeyahay in alle inta awooddaada ah awood aad ku leedahay miskiinada dulman ee dhiigeedii daatay kuma ogi xaddi karin inuu saaxiib dulmi yahay uma aqaano inuu dulmiga iska rab taago waxaan u aqaanaa in dulmiga ka dheedhiyo oo dulmiga diida inta aan aqaanana waxaan malaynayaa dadka yaqaana way jiraan dad iga sii aqoon badan laakiin inta aan aqaano kuma ogi cabdi karin isbaal taagi kara wax xun isma damiir laawo uma aqaano qof maxaan ku dhahday in arrimaha noocan oo kala ah soo ay ka labalabeeyo ma aqaano waxaan leeyahay inta adigu karaankaaga shaqada awoodda aad leedahay ha u kaadin laftii cadka israaci maalmaha kamid ah waxaan arkay nin madaxaasu mara ku duwan yaro caso guri buu garaacaya markaa gurigii ilan yar baa joogta caruur yar baa joogto xoog buu qaylinaya markaa waan la hadlay niman badan oo madaxa meesha ku taagnin intii kale ma dareemin la hadlo waxaan ku war ilmaha yar guriga aad ka furayso reerkan aad ku garaacayso si yar akhlaaq leh ula hadal inta sida dabalka ugu ciyayso cadow macna in cadow ku moodo ma qofka muwaadinka ee dadtiisa aad ka shaqeynaysa cashuurtiin dad ka soo qaada doonaysa inta wax ugu celisaa inuu cadow ku qaato maaha qofkan maamulka shaqaalaha ee la soo dirayna in uu isaguna bahal ku noqdo dadkii uu ku ciyo maaha shacabku inay kala hor yimaadaan dee fargeetay iyo iska celis iyo cadaadis shaqaalii dawladda sax uma arko marka waxaan u soo jeedin lahaa shaqaale kasta ama sanitation ka qaabilsanaadaan ama ha qaabilsanaadaan amni ama ha qaabilsanaadaan nadaafad ama wada banays qaabilsanaadaan markasta waxaan leeyahay waa shacabka ay dhex joogtaan dhibirsanaan u muujiya oo qalbi furan u muujiya oo dadka soo dhaweeya oo dadka cadow ha ka dhiganaydo inay cadow idin arkaan ma miko sarkasa askari bilis halka arkaayo waxa laga yaabaa dadku inay ka yar wadadaan dadku iyaga maamulka dadka dawladda xitaa madaxdu iyaga dadka cadaawada ka sameeysta dadka cadaawada ka sameeysan inay soo dhaweeyay arrintan baa timi waan ku celinayaa oo arrinka ka tagi maayay arrintaasi waxaan u malaynayaa in aanay arrin fudud ahayn oo aan u arkaa anigu aragtidaasi kuma koobiye inaan leeyahay anigu ninkaasi xitaa hal la wada xaalo haddii uu leeyahay kama kaasi xabsi daayin buu istaahilaa hadduu qisaaska baaqsada ka waxa sameeyay xabsi daayin buu istaahilaa warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa shirkadaha Daus iyo Omar ayaa ka heshiiyay muran ganacsi oo ka dhaxeeyay labada shirkadood sidoo warbixinta noogu faahfaahinaya wariyeena Cabdiwali Cagaarane waxaa halkan oo magaalada Hargeysa ka dhacay heshiis laba dhinac ah oo u dhaxeeyay shirkadaha Daus iyo Omar heshiiskan ayaa ahaa mid lagu soo afjarayay muran ganacsiyada u dhaxeeyay labada shirkadood kaas oo ka dhashay xafaayad ay keentay shirkadda Omar oo loo soo ekeysiyay xafaayadda shirkadda Daus ee Nuuna arrinkan ayaa waxaa labada shirkadood ku dhexdhexaadinayay rugta ganacsiga Somaliland oo kaashanaysa wasaaradda ganacsiga Somaliland waxaana sidoo kale lagu wareejiyay shirkadda Daus dhammaan xafaayadihii loo soo ekeysiyay kuwada Nuuna oo ay keentay shirkadda Omar si aan suuqa khalkhal ugu imaanin gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid ayaa akhriyay go'aamada ka soo baxay rugta ganacsiga Somaliland halkan waxaan isugu nimi inaanu ka sheegno go'aan aan ka soo saarnay annagoo ah rugta ganacsiga lana kaashanay culummada iyada nagala talisa xagga sharciga islaamka kuna dhaqanay tii dastuuriga ahayd aanu ka wada shaqayn jirnay dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland go'aamada ay u soo saartay khilaafaadka ka dhashay ganacsiga inaanu halkan ugu garnaqnay laba shirkadood oo kala ah Daus Company iyo Omar Company oo dhex maray bahasha loo yaqaan xafaayadda oo ay isaga ekaadeen waxaanu go'aaminay qodobada ugu muhiimsan in shirkadda Omar uga leexato ama uga guurto shirkadda Daus astaanta ganacsi ay caanka ku tahay sida midabka qoraalka iyo farta ku taala xafaayadaha
waxaanu aada ugu hambalyaynaynaa iyadoo rugta ganacsigu u taagan ama ay howlaheeda ka mid tahay khilaafaadka soo kala gala ganacsatada ka diiwaan gashan rugta ganacsiga inay rugta ganacsigu gacanta ku qabato oo ay dhammayso lana kaashato wixii howlaha iyo shuruucaha xukuumadda Soomaaliland ee wasaaradda ganacsigu u matalayso iyo dalxiisku howlahaas waxaan shirkadda Daawus iyadana go'aamada ku soo saarnay in ay ka bixiso raaligelin shirkii jaraa'id ay qabteen iyo wixii ka farcamay ee ay dhibsadeen ama dhib u keenay shirkadda Omar inay iyaguna apology ka bixiyaan iyo raaligelin ayaanu iyagana go'aamada ka mid ahaan ku soo saarnay taasoo maanta labada dhinacba diyaar u yihiin gudoomiyaha shirkadda Daawus Saciid Cabdi Ismaaciil ayaa dhankiisa soo dhaweeyay go'aamada ka soo baxay rugta ganacsiga Soomaaliland. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد marka hore mahad ilaahay baa iska leh falillahi alhamdu awran akhiran marka labaad waxaan u mahad celinayaa dawladda Soomaaliland wasaaradda ganacsiga rugta ganacsiga dhammaan waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin arrinkii yaraa oo dhacay maalinkii dhaweyd sida ay muxuu noo dhexdhexaadiyeen annaga iyo Omar Company runtii aad baan ugu faraxsanahay mar kale waxaan leeyahay mas'uuliyiintaas aad iyo dawladda iyo hay'adaha ku shaqada aad baa u mahadsantihiin jazaakallahu khayr iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay arrinta xalinteeda intaa kadib waxaan rabaa qodob kale inaan halkan ka sheego oo ah annaga iyo Omar Company waxaan nahay laba shirkadood oo walaalo ah oo reer Soomaaliland runtii xaqiiqadii laakiin waxa la yiraahdaa carab iyo labada daan baa isugu dhaw iyagu way isqaniinaan taasna waxa iska ahayd wax caadi ah oo natural human error ah oo iska dhaca arrinka dhacay marka waan iska aragnay runtii waxayna ahayd arrin mar walba dhacda iska dhacda bini'aadanka dhexdiisa ka dhacda waxaan aad ugu mahad celinayaa oo kale aan laba ilaawaan runtii Omar maamulka Omar oo mar walba oo aan u cabanay arrintii dhulka dhigay naga gar qaatay si fiican oo soo dhaweeyay ilaa iyo xad runtii waxaan la ilaawi karin way waxaan kala ogaanay arrimo wax iska qaldamaan mararka qaar kood in laba ogeynba arrinkan say ku timi oo maamulka Omar iyo shirkadda wax talagal ah aanay ahayn ee iska ahayd wax iska dhacay taana insha Allah aad bay ugu mahadsan yihiin waana uga mahad celinaynaa mana ilaawi doono wada shaqayn rasmi ah baana dhex mari doonto mararka qaar kood waxyaabahan oo kale waa la isku bartaa aad baan uga mahad celinaynaa dhammaan madaxda shirkadda Omar waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan rabaa oo kale qodob kale inaan ka hadlo oo ah shirkii jaraa'id maalintii dhawta aan qabtay hadalkaygii runtii de ma hadal xun muusan ahayn wuxuu ahaa hadal aan u soo jeediyay inaan bal saragno bal dawladuna aragto khalad ka dhacay kaasna waxaa ka dhashay dad baa ka sii faa'iiday oo hadalkaygii bedelay oo waxyaabo kale ka sii qaaday arrinka apologize baan ka bixinayaa raaligelin baan ka siinaynaa Omar maamulka Omar shirkadda Omar oo runtii ah shirkad weyn oo caana oo dadka oo dhan wada garanaya dhinaca kale wakiilkii mataliyay shirkadda Omar ayaa sidoo kale soo dhaweeyay go'aamada ka soo baxay rugta ganacsiga Soomaaliland oo kaashanaysa wasaaradda ganacsiga Soomaaliland farxad bay noo tahay maanta inaan ku soo gabagabaynay khilaafkii astaamaha isku ekaaday ay ka cawteen shirkadda Daawus xafaayadaha Nuura iyo Nuna sida ay noogu dhexdhexaadisay rugta ganacsigu milgaha leh aad baan ugu mahadnaqaynaa bilxaqiiqa shirkad ahaan inaan wax koobigarayno ama aan wax u soo ekaysiino ku talagal may ahayn waxay ahayd in si kama ah inay iskugu ekaadeen oo u yimaadeen wixii ay nagu kala xukumeen ee ah in astaamaha loo daayo shirkadda Daawusna raalli baan ku nahay wixii wada shaqeynaya dambe ee na dhex marayana diyaar baan u nahay Cabdi Cagarna SBC waa tahay daawadayaal waxay taasi ku soo afmeeraya warkeed kala socotay telefishinka SBC warka waxaa idin la socodsiinaya anigoo saacadtaadka tan iyo kulan dambe sidaas iyo amaana Allah